golahan wasiirada ee uu magacaabay xalayto madaxweynaha maamulka galgaduud sare xasan maxamed siciid samatar ayaa ka koobnaa 21 wasiir. mahad maxamuud cakaawe xogayaha madaxtooyada ayaa warbaahinta u akhriyay digreetadii uu madaxweynuhu ku magacaabay xubnahan wasiirada. bismillaahi raxmaani raxiim. digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda galgaduud sare ujeedo magacaabis golaha wasiirada. madaxweynaha dowladda galgaduud sare markuu la tashtay madaxweyne ku-xigeenka dowladda galgaduud sare markuu arkay qodobka 46 firqadiisa saddexaad qodobka 51 firqadiisa koobaad iyo tan labaad dastuurka dowladda galgaduud sare markuu arkay taariikh nololeedka iyo waayo aragnimada shaqo ee shakhsiyaadka u taagan qabashada xilka dowladda galgaduud sare markuu la tashtay xubnaha baarlamaanka dowladda galgaduud sare dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada dowladda galgaduud sare kuna raacay talo soo jeedintooda wuxuu xeeriyay in laga bilaabo maanta oo ay tahay taariikhdu 24 May 2016 magacaabay golaha wasiirada. kow mudane cabdulqaadir cabdi faarax wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa beeyada. mudane cabdirashiid xaashi cali shirwac wasiirka arrimaha gudaha. mudane olol maxamed xasan garbacune wasiirka qorsheynta dibadda iyo iskaashiga. mudane maxamed cali wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. mudane fool cabdullaahi xirsi wasiirka amniga. mudane duraan faarax maxamed wasiirka maaliyadda. mudane mustafe maxamed xaashi wasiirka dhalinyarada iyo sportska. mudane cusmaan axmed maxamuud wasiirka ganacsiga iyo warshadaha. mudane xasan aw maxamed amiin wasiirka tamarta iyo beeyada. mudane daadir cabdi cali dharaar wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare. xeerkani wuxuu dhaqan galayaa goorta lagu qoro faafinta rasmiga ah ee dowladda galgaduud sare laguna faafiyo baraha internetka. waxaa ku saxiixan madaxweynaha dowladda galgaduud sare ayaan la cabdullaahi jaamac Home Cable TV Aabudwaq.